garaad maxamed garaad abshir saalax maxamed garaadka beesha guuleed garaad oo safarkiisa sii watay ayaa waxaa si mugya miisaan loogu soo dhaweeyay degmada xamar lagu xidhay gobolka Cayn. bulshada reer xamar lagu xidhay ayaan u kala hadhin soo dhaweynta garaad maxamed garaad abshir saalax maxamed iyagoona uga hortagay meel ka baxsan magaalada. wafdida garaadka ayaa bulshada reer xamar lagu xidhay waxa ay ku soo wareejiyeen xaafadaha iyo wadooyinka kala duwan ee dhexmara degmada xamar lagu xidhay gobolka Cayn iyagoona ugu dambeyntii isugu soo biyashubtay munaasabadii ay u diyaariyeen garaad maxamed garaad abshir saalax maxamed iyo waliba wafdidiisa. bulshada reer xamar lagu xidhay ayaa si mugle u soo dhaweeyay garaadka waana kuwan iyagoo ka hadlaya soo dhaweynta garaad maxamed garaad abshir saalax maxamed. waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa garaad maxamed garaad abshir saalax maxamed cali waanu ku soo dhaweynaynaa haddaanu nahay beesha xamar lagu xidhay haddaanu nahay waxaanu gacmo furan qalbi furan niyad saafiya kala hadlaanaanu ku soo dhaweynaynaa garaad maxamed garaad abshir garaad saalax kusoo dhawow garaad dagaaladaadii. ilaahay baa mahad iskale marka koowaad marka labaad waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa garaad maxamed garaad abshir saalax maxamed. waxaan leenahay garaad soo dhawoy si farxad leh oo farxadi ku dheehan tahay ugu soo dhawow dadkaagii iyo deegaankaagii ugu soo dhawow aad iyo aad baanu kuu soo dhaweynaynaa si kal iyo laabaanu kuu soo dhaweynaynaa garaad aad iyo aadna waad u mahadsantihiin garaadka iyo wafdida la socotaba dhammaan waa soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala aad iyo aad baanu idiin soo dhaweynaynaa. wuxuunahay waxaanu ku soo dhaweynaynaa si kal iyo laaba oo aayadaha qur-aanka iyo xamdigaas aan ugu horraysiinay garaad maxamed garaad abshir ku soo dhawow dalkaagii dadkaagii oo ku diyaar oo ku diyaar garoobay adigoo waxaanu ka filaynaa inaad naga aqbashid sidaas leegin macnaha aad noogu jawaabtid. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. garaad maxamed garaad abshir saalax iyo wafdiga ballaaran ee hogaaminayo nagu soo gaaray deegaanka xamar lagu xidh haddaan nahay dhallinyarada deegaanka odayaasha haweenka dhammaan bulshada deegaanka xamar lagu xidh waxaanu si weyn u soo dhaweynay garaad maxamed garaad abshir saalax garaadku wuu inala joogi doonaa beelaaca waa haddii lahaydmo shirarna wuu la qaadan doonaa bulshada deegaanka waktigoona u gaaban daraaddeed waxaanu si weyn ugu mahad celinaynaa bulshada deegaanka xamar lagu xidh ku nool oo waktigii yaraa aanu codka siinay in garaadka la soo dhaweeyena soo ajiibtay iyagana aad baan ugu farxad gelinaynaa wafdidan ballaaran ee garaadku hogaaminayo inay caawa deegaanka noogu weeyato aad baanu iyana ugu faraxsannahay haddaan nahay bulshada deegaanka xamar lagu xidh. ugu dambeyntii garaad maxamed garaad abshir saalax maxamed ayaa si mugle ugu mahad celiyay dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan degmada xamar lagu xidhay gobolka Cayn isagoona u duceeyay allana uga baryay in alla uu barakeeyo. sharafta leh odayaal leh dhalinyaro leh dumar leh caruur leh waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan idinka mahad celinayaa soo dhaweynta tollimada leh walaalnimada leh aad noo soo dhaweyseen iyadoo waqtiguna gaaban yahay ogeysiiska laydin siiyeen ogeysiis aad u gaaban ahaa. waxaan idin leeyahay jazaakumullaahu khayran. waxaan ilaahay idinka baryayaa idinkoo isku duuban in ilaahay idin barakeeyo carruurihiinna barakeeyo idinka dhigo dad xadhigga ilaahay haysto ehlu tawxiida odayaashiinna barakeeyo deegaanka barakeeyo oo deegaanku noqdo mid nabad ah oo nabad iyo caano waana wada joognaa aad iyo aad iyo aad baan idinka aqbalay soo dhaweynta qiimaha leh waa idin salaamaynaa waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran waana wada joognaa waa idin salaamaynaa. Sakariya Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Somali News xamar lagu xidh.